بسم الله مقعي وعد ناس محمد فارح كنا مقعدير عبد الناس بوتان waxaa la yiraahdaa wax walba oo jira adduunka waxay soo maraan marxalado kala duwan kuwaas oo ah qofku markuu dhasho hore kama dhaqaaqo wuxuu u baahan yahay marka koobaad xataa waxa dhibaysa dabaysha dhibaysa waxa kale oo dhibaysa cadceedda dhibaysa waxa dhibaysa huurka fara badan baa dhibaya waa qof daciif ah wa khuliqa al-insaanu daciifa ayu ilaahi subhanahu wa ta'ala yiri qofku markuu soo barbaaro uu maaragtay bilaabo noloshiisa in ay horay u socoto uu bilaabo inuu isrogrogo waxa u fududaata marka dambe in uu maaragtay soo fariisto ama beerka uu ku socdo ama gurgurto adana waxa u fududaata in uu sameeyo darbiga inuu raaco oo uu socdo nolosha waa marxalado lagamana boodi karo marxalado weeye lagamana boodi karo oo lagama tilaabsan karo waxa loo baahan yahay qofku markuu soo weynaado noloshiisa waxay u baahanaysaa inuu asaga maareeyo qofku markuu yar yahay waxa uu maareeyo waalidkiis haduu gaajaysan yahay ma dhaho waan gaajaysanahay waa qayliya waa ooya hooyadiis baa fahmaysa waxa uu u baahan yahay sidoo kale wuxuu qofku u baahan yahay in markuu weynaado uu noloshiisa asagu maareysto oo uu bulshada dhexdeeda ku yeesho saameyn gaar ah bulshadana ka dhex muuqdo waxa u fududaanaysa qofkaas in uu noloshiisa maareeyo waxay ugu fududaanaysaa in uu asagu noqdo qof ku kalsoon naftiisa ku kalsoon waqtiga uu ku nool yahay aanan cidna eedaynin sidoo kale dadka ama Soomaalida baa waxa la yiraahdaa dhalinyaradeeda wax walba hadii la yiraahdo ruuxa aan sameeyno may waqtigan hadda la joogo lama sameyn karo waxa la yiraahdaa qofka mar walba uu cududaar sameeysto noloshu mar walba caqabad ay leedahay hadii aad caqabadaha sii badisid adiga caqabaduhu ka maaragtay tagmayaan ilaa aad adigu ka hortagtid caqabad walba oo kugu timaada noloshaada waxa loo baahan yahay adigu inaad weerar qaadid aadan adigu difaac galin hadii aad difaac gashid ama waa laga reeyay ama si nasiib uga baxsanaysa waxa loo baahan yahay in aan nolosheena maareyno oo aan ku dhaqaaqno wax walba oo aan wajihi karno oo nolosheena horumar u keeni kara ama waxyaabaha toosan ee qofka noloshiisa hore u qaadi kara gaar ahaan aqoonta adduunka hadda waxa la isku dhaafay aqoon baa la isku dhaafay ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa uu dadka u fududeeyay ama uu siiyay waxyaabihii wax lagu baran lahaa sida inuu qofku leeyahay lixda lixaad ay Soomaalidu tiraahdaa inuu qofku leeyahay arag uu leeyahay maqal uu leeyahay gacmo iyo lugo gacmaha waxay u fududeynayaan inuu wax walba qabsado in uu soo saari karo wax aan adduunka ma aragtay horay uga jirin oo kale sida inuu dadku ama ay dadkeena noqdaan dad mukhtariciin ah ee wax soo saara waxa loo baahan yahay dhalinyarada Soomaaliyeed in ay ka faa'iideystaan fursadaha adduunka jira hadda adduunku waxa la yiraahdaa waa qariya saqiira adigoo Soomaaliya jooga boosaas adigoo jooga waxaad la hadlaysaa ama aad 10 kala soconaysaa cirifka koonfureed ama cirifka waqooyi ee adduunka afarta jiho intuu adduunka naga xigo saad doontid ayaad ka yeeli kartaa wax walba oo wanaagsan oo naftaada horay u wadi kara waad kaga faa'iideysan kartaa inaad adigu ka soo hanatid waxaan u baahanahay in aan nolosheena taako tilaabo aan horay u wadno waxa la yiraahdaa mahmaa Soomaaliyeed baa jirta oo ah Roma maalin lagu ma dhisin magaalada Roma waa caasimadda Talyaaniga maalin lagu ma dhisin waxay ka soo qaateen ama dadka Soomaalida waxay ka soo qaateen wax walba oo jira in laga bilaabo aasaas hadii uu aasaas ka khaldamo wax walba waa ka khaldamayaan waxa loo baahan yahay in aan annaga gaar ahaan dhalinyarada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan ay ka faa'iideystaan fursadaha ay haystaan fursad walba oo adiga naftaada soo marta iyo noloshaada waxa loo baahan yahay in aad adigu ka faa'iideysatid si aad u wajahdid waxa kugu soo socda oo aad difaac uga xiratid hadii aad adigu iska fadhidid waxa lagu iimaanayaa baddaada lagu iimaanay sida hadda jirta waxaana lagu iimaanayaa barigaana lagu iimaanayaa macdanteena la soo doonanaya waxaana lagu iimaanayaa shidaalkeena waxaana lagu iimaanayaa nafteena waayo qofku hadii uusan waxyaabahaas oo dhan difaacan waxba ma ahaba in aan ku dadaalno
boos aan guri ka dhisano ama aan ku dagaalano boos aan iska leenahay ama balli yara oo maaragtay biyo ku jiraan inaan isku dagaalno way noo fududahay oo anaga dhexdeena ah laakiin waxa noo fududaatay waxa aan wajihi weynay in aan ilaashano badeena birigeena hawadeena wax walba Soomaaliya waxa la yiraahdaa waa open hore iyo gadaal way u furan tahay yaa xiri kara anaga xiri karna wax walba waad adiga leedahay haddii aad ilaashatid cidna kuuma soo hanjawayso ama cidna kuuma soo aadayso waxa haddii ilaashatid laakiin anagii baa waxa la yiraahdaa hayaan baba nahayba waxaan hayaan u nahay nolol aan nolosheena ahayn wadan marti ku noqo waxa la yiraahdaa dhul shisheeye dareen ku joog dhulka shisheeye adigu iska marihid maalin bal gooran kara ka bax waa lagu soo tarxiili karaa adigoo labadii shay ama saddexdii shay guriga ka soo baxday wata baa lagu oran karaa waa lagu tarxiilay intii lagu xiro wadankaaga baa toos lagu keenaya haddii aad wadankaaga adigu aaminin cidna ku aamini mayso wadankaaga haddii aad suuq geyn cidna suuq geyn mayso qofka shirkadda iska leh ama ganacsadaha ah wuxuu u baahan yahay productiga uu soo saaro inuu asaga suuq geeyo haddii uu wax soo saaro oo uusan wixiisa suuq geynin cidna fadhiga ugu imaamayso waxa loo baahan yahay in aan ka faa'iideysano productyada wadankeenu leeyahay gaar ahaan human resource waxyaabaha la yiraahdo waxyaabaha qofka ku jira qofka waa la dhalaaliyaa waxyaabaha ku jira waxa loo fududeeyaa in uu qofku fakaro afala tatafakkarun billahi subhanahu wa ta'ala leeyahay warmiyeedan fakarayn fakarka qofka hadii uu fakaro waxyaabo fara badan baa u soo baxaya oo noloshiisa kamid ah in uu noloshiisa hormariyo oo uu ka faa'iideysto fursadda uu haysto oo uu ka faa'iideysto waqtiga uu joogo oo uu ka faa'iideysto agabka uu haysto hadii aan aniga tusaale ahaan iska soo qaado hadii aan u baahanahay in aan buug wax ku dhigto oo aanan haysan buugaas waajib ma aha in aan maaragtay buuga hadii aan waayo aan waxbarashada iska daayo waxay yiraahdaan qofka waxyaabaha nolosha asaasiga ka ah iyo waxyaabaha kamaaliyaadka ka ah noloshu waxyaabaha asaasiga ka ah hadii uu qofku uusan haysan kamaaliyaad inuu helo haba sheegin waxyaabaha asaasiga sida saddexda maaragtay waqti oo la cuno cuntooyinka aan cunno inuu qofku helo oo waxyaabaha nolosha asaasiga ka ah kamaaliyaadka waxa ka ah inuu qofku gurigiisa leer leeyahay oo kale waa kamaaliyaad hadii uusan gurigaagu leer lahayn kama dhigna nolosha ka dhacday dad fara badan oo aan nolosha heer ka gaarin ama nolosha heer ka gaaray guryahooda koronto ma laha waxay kaga faa'iideystaan ama faynus haystaan waxa la yiraahdaa taagtaadu intay tahay baa la tilaabsadaa marka taagtaadu intay tahay tilaabso oo waxaad haysatay ku qanac naftaada ku qanac ilaahay subhanahu wa ta'ala intuu ku siiyay iimaanso waxay yiraahdaan Matthews Addison ninka leerka sameeyay ayaa wuxuu ahaa qof maskaxdiisu ay adag tahay ama aan waxba fahmin waxa la yiri hooyadiis macallinkii waxa bari jiray baa hooyadiis warqad u soo qoray warqadda waxa ugu qornaa wiilkaagu waa wiil madax adag wax ma baran karo naga kaxayso hooyadiis warqadiisa uu la soo socday isagoo in ma yar wax ma akhrin karo hooyadiis buu keenay warqadii hooyadiis way u akhrisay hooyadiis maysan u sheegin wixii warqadda ku yaalay waxay tiri hooyo waxa tahay wiil aad u maskax badan waxa tahay wiil macallinka wax ku dhiga uu san waxba fahansin karin maskaxdiisa iyo maskaxdaada ayaa awood badan waxa tahay wiil ardada uu la joogo IQ-giisa ay ka sareyso marka waxaan sameynaynaa ka guureynaa meesha aan deganahay waxaan aadaynaa meel ka duwan oo adiga aad u qalantid oo wax ku baran kartid wuxuu halkaas ka bilaabay in uu noqdo qof mufakkir ah oo dhaqaajiya maskaxdiisa wuxuu heer ku gaaray in uu soo saaro maantay leerka adduunka oo dhan laga ifsado waxa la yiraahdaa maalintii ay hooyadiis ay dhimatay waqti badan kadib wuxuu aaday guriga hooyadiis wuxuu soo arkay wuxuu baaray hooyadiis boorsooyinkeedii wuxuu ka helay warqadii maalintii macalinku u soo dhiibayay waxa ku qoran maaragtay wiilkaagu saan warkii aan hore u sheegay wiilkaagu waxba ma fahmi karo maskaxdiisuna waa adag tahay wuu ooyay oo wuxuu yiri hadii aysan hooyaday maalintaas ay oran lahayn saasa tahay nolosheedu waxay ahaan lahayd nolol aan waxba ahayn marka waxaan u baahanahay annaga ubadkeena hadii ay yihiin ubad maaragtay xagga waxbarashada aan ku firfircoonayn in aanan ka dilin maskaxda qofku maanku ka nool yahay waa inaan maankiisa u dhisnaa oo aan kula dadaalnaa in uu noqdo qof bulshada wax u ah
qof walba bulshada wax buu u yahay laakiin qofka erey ku yiraahda waxa la yiraahdaa ereyga qof wax kugu dhuftay iyo qof erey ku yiraahda qofka erey ku yiraahda ayaa kaaga daran kan wax kugu dhuftay waa ilaawi kartaa jirkaagu waa ilaawi karaa laakiin qofka ereyga xun ku yiraahda ama ereyga negative-ka ku yiraahda waxa laga yaabaa noloshaadu intay jirto inuu saameyn kugu yeesho waxa loo baahan yahay ilmaheena yararka ah ee soo koraya inaan uga faa'iideysano ama aan uga faa'iideyno fursadaha aan haysano kuna dhiirigelino inay jeclaadaan waxbarashada iyo waxyaabaha maaragtay gacmaha laga qabto sida waxa la yiraahdaa farsamada gacanta oo kale qofka haduu leeyahay farsamada gacanta uu talan karo kabtiisa guriga gambar yaale haduu kabi karo lay guriga ka jabay haduu xiri karo waxyaabahaas oo dhan waxyaabaha u fududeynaya qofka inuu hadhow noqdo qof wax soo saara. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'ala wa barakaatuh.